wararka aan idiin hayno waxaa ka mid ah Iiraan oo ka qaylisiisay Masar kadib markii masaarida su'aalo laga weydiiyey ciidanka ay dhawaan keentay Imaaraadka. haddaba wararkii ugu dambeeyay iyo masaarida oo aflabadii qaylisay ayaynu barnaamijka idinkugu haynaa. aayatullaahiga Iiraan oo la sheegay inuu awaamir cusub siiyey taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka ee xarunta khaatimul anbiyaa. haddaba maxay tahay arrintaas barnaamijka ayaanu ku faahfaahin doonaa. qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaan idinkugu hayaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un wiilka jeegada xiirka ayaa dastuurkiisii bedelay oo waliba qodobkii nuclearka ayaa wax badan laga bedelay. qodobadaas ayaynu barnaamijka ku soo qaadan doonaa. wararkii ugu waaweynaa ee ay warbaahintu qoreen ayaynu barnaamijkeena caawa ku faahfaahinaynaa. waxaynu ku bilaabaynaa Masar iyo Iiraan. dhawaan waxaan idiin soo gudbiyey war ku saabsan in Masar ay ciidan u keentay Imaaraadka. ciidan kaliya ma ahane diyaarado dagaalna inay soo raacayso oo lagu eedeynayay ninkii Siisi ahaa inuu xoogaa xisaaba kaga qaatay ninka haysta muxuu ahaa Imaaraadka Maxamed bin Zayed. habayu yiri anaa ciidan iyo diyaarado iyo wax ku keenay Iiraan meelan ka saaray ninkan marka xogaagiisu duubtay. ciidankii uu keenay saldhiga la dejiyay diyaaradoodii la soo degeen barkan hadduu dagaal ka bilowdo yiri wacdara ka dhacay gantaalahana difaaca cirka la yiraahdaa waa kaas. Iiraan marka waxay su'aalo weydiisay nimankii masaarida ahaa. maxaa u soo bareerteen inaad nala dirirtaan? macnaha Masaray ma waxaad u soo qalab qaadatay inaad nala dagaashid? maxaa dhacay waay? ciidankan aad keentay Imaaraadka muxuu Masar aflabadii qaylis war ciidan dagaal ma aha war maxay yihiin waa niman tababarayaal iyo xoogaa yaroo ciidana. diyaaradahanu maxay yihiin? 4 diyaaradood leewaay kuwa tababarka waay waxa shaqo kuleena anaga dagaal hadduu qarxo shaqo ma kulihin waa ninkaan odaga xisaabta ka qaadanayna camal nimankii barka cabaadkoodii baxay masaarida waa la soo qab laba cadeeya leeyahay bas ma inaan nala dagaashaana meesha u imaateen cabaadkooda baxay nimankii barka ninkii lacag ka qaateen nimankaan inay la dagaalaan barraba nimankaan de waa la yaqaan joogta culus la yiraahdaa. Iiraan niman sahlan ma ah. nimankii barnaamijkan kii ka horeeyay labaad aan ku soo qaatay way lahaa dagaalkii labaad ee adduunka kadib cid kaliya oo ka adkaatay Mareykanka annaga way nimankii dhahay waay. nimankaan meel isla joogaan iyo Masartaan gabgabta leh urbeeshaada macalinka weyn la cunay. barnaamijkan kii ka horeeyay Faransiiska iyo Ingiriiska maraakiibtoodii loo hanjabayaa Yuruba meel la saaray iyo Masar marka maxaa taadi markaasa Masar qaylis. Masar cabaadkeeda hadalkeeda waxa ka muuqda waraanahu dagaalkiina ma u imaanay xisaab kala u imaanay meeshada ku jirta. haddaba markaan idin tuso wargeyska la yiraahdo Ra'yul Yawm ayaa goordhow qoray warbixin uu leeyahay ciidamada masaaridu waxay u sheegeen Iiraan in ciidanka Masar ee jooga Imaaraadku ay yihiin ciidan yar oo cilaaqo aan la lahayn ama wax xiriir aan la lahayn howlgallo dagaal iyo waxaas. 4 diyaaradood wataan waxa waaye ciidan sagiira waaye waa yar yihiin waa 4 xabo wax dagaal wax geli kara bale nin oday meeshaan oo cabsidu wareerisay madax martay aan waxaan rabnaa in xoogaa kaga duubana camal nimayow annagu meedii soconna dhexe wala qayli. wakii Iiraanita ubadeena ma Iiraan caadi ma nimankii masaarida cabaadkoodii baxay cabaadkoodii. marka qodobkaas halkaas kaga gudbaynaa. qodobka labaad ee barnaamijka aayatullaahiga Iiraan Mujtaba Khamenei ayaa amara cusub wuxuu siiyay lagu leeyahay taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka ee xarunta khaatimul anbiyaa. marka muxuu leeyahay awoodaada waa haysataa la yiraahdaa
waxaa rabto nagta ka saar amniga waddanka iyo wixii soo hujuuma dhagaha ka garaac ninkii isaguna warbixinuu siiyey wuxuu yidhi waa isku filanna nimankii midda aan ku dhignay ilaa hadday la jahwareersan yihiin hadday haddana isa soo waalaan mar kale ayaanu garaaci doonnaa haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay sheekada ku saabsan saacadihii lasoo dhaafay jariirada la yiraahdo al-Qudus waxay leedahay aayatullaahi khamenei ayaa siiyey macluumaad ama awaamiir cusub taliyaha xarunta khaatimul anbiyaa ayuu siiyey wakaaladda wararka ee Iiraan oo la yiraahdo Faris oo warkan laga soo xigtay ayaa sheegtay maanta oo axada in ninka la yiraahdo Ali Abdallah oo ah taliyaha ninka hogaamiya kooxda hubaysan ee Iiraaniyiinta ama ciidamada hubaysan ee Iiraan ee maqarrul khaatimul anbiyaa ayaa la sheegay inuu la kulmay hogaamiyaha sare ee ruuxiga Iiraan Ayatullaahi Mujtaba Khamenei waxaana la soo siiyey awaamiir iyo amarro cusub howlgallada military ku saabsan laakiin wakaaladda wararka ee Faris xilliga kulankoodu uu dhacay iyo meesha ka hadlay maanta laakiin warkaas ka hadashay oo ay soo saartay waayahay macluumaadkaas marka iyaguna halkaas kaga gudbaynaa wararka kale ee soo kordhay iyana waxaa ka mid ah abaanduulaha ciidanka Israa'iil ayaa isaguna wuxuu yiri wax xabad joojina oo ka jira dhanka Xisbullah iyo annaga dagaalkeena maartay ma jiro mana dhici karto xabad joojin meesha maba ka jirayso ilaa danahayna aan gaarno danahooda muxuu yahay inay hubka ka dhigaan Xisbullah hubkeeda ka dhigisteeda marka basaala yahay masalada waa marka la isku baabaya marka wuxuu leeyahay meeshaas annagu hal midaan dagaalkeeda ku joojin karnaa inaan hubka ka dhigno Xisbullah yoolkeenu waa kaas inaan gaarno haddaba markaan idin tuso warka uu dhawaan soo saaray abaanduulaha ciidanka Israa'iil ayaa sheegay inaysan jirin wax xabad joojina oo ka jirta jabhadda ama dhanka waqooyiga Israa'iil ee Lubnaan haddaba waxa uu sheegay hadafkooda ugu weyn inuu yahay ilaa ay hubka ka dhigaan Xisbullah oo marka aanu joojino yiri qataraha sawaariiqda iyo droniska iyo dhanka nooga imaanay ilaa inta meeshaas ay wax ka soo dhacayaan khatara ku jirnaa waxa batoojina ma gali karno leeyahay waaye qodobka kale ee barnaamijka aynu ku soo qaadanayno wuxuu yahay ninkii jaagaxirka ahaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa dastuurkiisa wax ka bedelayeen ninkan waa iska kaligii talis dastuurku wax ka bedelay waxaas waa dadka loo sheegaa ma hale habeenkii wuxuu rabo iska qortaa ninkan nin oo dastuurka iyo waxa kan iyo isaga iska sameeysta laakiin adduunyada wax loo ogeysiinaya dastuurka wax laga bedelay haddii dastuurka nuclearka aan haysano markii hore wuxuu ahaa dalka haddii la soo weeraro oo nuclear lagu soo weeraro in nuclear lagu difaaco waxaas markii hore ku qornaa jiray chapterkaas dhan marka waa la bedelay waxa markii uu arkay Ayatullah Ibalkan Ayatullahi Iiraan oo gaadma lagu dilay iyo wixii markuu arkay jaagaxirka waa shiki wuxuu isdhaay gaadma lagu dili karaa in lagu gaado in lagu dilo waa suuragal sababtoo ah Ayatullahi haddii gaadma lagu dilay cid kasta la gaadi karaa marka meeshan si aan lagu gaadin waa inaad dastuurka ku qortaa qodob muhiim ah muxuu ku qortay mataqaan haddii la dhibaateeyo hoggaanka iyo madaxda waddanka oo dhib soo gaaro ama macnaha weerar gaadma iyo lagu soo qaado dil ama ka badbaadeen ama in kale nuclear ay ku jawaabay Kuuriyada Waqooyi yaa liigu soo degdegi waayo cunuga jaagaxirka cunug baaya ka dhacdo waayo حتى هذه اسكودي دل يقول يو أن كبت بعد نيوكلير أو كجوابه ولا يعني أمريكان مركز نجاه وتاجر عندي نكان وحكرب تبركورين قاعدنا كل شيء وحاز مركا نكان دستور كأكو قرب ليه ودك هذا مركا ردي تصور جيس كلي هذا الشرق الأوسط أيا قري وربعين تنوعليه كوريا ذا وقوي وحي وحكبت الشيء دستور كذا تعصوا مركا خصيصة لنا نيوكلير كا
haddii la isku dayo in la khaarijiyo Kim oo ah hogaamiyahooda. haddii Kim la isku dayo waa jeegxirka Kim Jong Un leeyahay haddii la isku dayo waa nuclear ku jawaaba oo dhaay marka sheekadaas marka waa caadi baaha odaga marka ninka jeegxirka in caadi ah saalan ma haddaba qadar xayeysiisa kadib maxaa soo kordhay wararkii dambeeyay soo kordhay tan intaynu kala maqnayn aynu barnaamijka ku soo qaadanaynaa warbixinada barnaamijkan idinku wayno waxa kamid ah ugu dambeyn Iran oo u gudbisay Pakistan goordhawey fakarkeeda wada hadalka ku saabsan ee uu Mareykanku muddo sugay laakiin la taliyaha Ayatullaahiga ayaa war cajiiba ka soo daba tuuray haddaba sheeko la yaab leh sida wax la isu dhaafsaday iyo warka gadaal ka yimid iyo wararkii ugu dambeeyay barnaamijkan idinku haya dhanka kale sargaal sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa sheegay Ingiriiska iyo Faransiiska maraakiibtan ay keenayaan Hormuz ee ay leeyihiin maraakiibtan ku caawinayna annaga iyo ayaga il iyo aragtiya naga dhaxayso nagta ka saarayna sheekadaasu iyana waan idin hayaa waxa soo kale aan idin soo gudbin doonaa Shiinaha oo isna hunguri uga jiro khaliijka inuu soo dago kadib marka Mareykan halka ka baxo Shiinuhu wuxuu aaminsan yahay Mareykan inay halka uga dhamaatay oo Iran ka cayrsatay oo sii socdo haddaba qodobadaas ayaynu barnaamijkeena labaad maanta axada ku faafo gudbinaynaa ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa Pakistan oo sheegtay inay Iran ka gudoontay jawaabtii hindisihii Mareykanka kadibna jawaabta ay u gudbisay Mareykanka Pakistan waxay leedahay annagu sideedaba dhexdhexaadana warqadda naloo keeno ma furno xataa ma fiirino ayadoo sideeda America waataas American hindisa keenaya Iran u socda annagoo furin waakaas inaan wada hadalnaan ku heshiinay Islamabad kaalay intaas way dheen shaqadeen haddaba maalmahan oo dhan Mareykanku waxay u foolanayeen oo naftu kays oo Iran ma ka soo jawaabto ilaa markii dambe la yiri Iran waxay la gaadeen dhikan safarkiisa Shiinaha laakiin safarkii ku dheeraaday baashi sidii loo soo safarkii 4 ma dhawa ninkana cabaadka ka dhabaaday maalin walba 4 jeer u sheegaya wuxuu leeyahay Iran ka sugayna Iran aawo Pakistaaniintii ula hadlaya wuxuu leeyahay aawo hadda marka waa la dhiibaaliyeen laakiin jawaabta ay keentay Iran inay wax walba ogolaatay inay miiska fariisanayso iyo wixii dhan wali tafaasiil laga mahay Pakistan waxay leedahay anagu waxba ma wana fiirin waa qabanay waa dhiibnay Mareykanka haduu dhiibnay Mareykanka markaas ka soo jawaabi doona waxyaabo keentay kana keentay asaga soo dhixi doona tirin haddaba marka aan tuso marka hore warbixinta sheekadan ugu dambaysa laga qoray waxa leeyahay Iran waxay u dhiibtay jawaabtii laga sugayay hindisihii Washington si marka dagaalka loo dhameeyo marka Iran waxay soo dhiibtay hindisihii Mareykanka loo gudbinayaa kadibna dagaalka si loo dhameeyo ujeeda marka Pakistan loo dhiibay alwasiid Pakistani leedahay dhexdhexaadiyaha Pakistan loo dhiiba asaguna marka iyadoo sideedu dhiibay laakiin marka war yara soo baxay meeshan aad cajiib ah la taliyaha Ayatullaahiga waa nin awood ku leh marka loo eego title-ka ama jagada uu haysto la taliyaha Ayatullaahiga waa nin sare wasiirada iyo waxaan dhan ka sareeya ninkaas war ka soo daba tuuray warqadii la dhiibay macnaha warqadda waxa ku qoran lama ogeyn warbaahinta ma ogaa karin Pakistan waxay tiri anagu sideeda iyadoo Mareykan u dhiibnay Mareykanna wali kama soo jawaabay warqadda marka waru ka soo daba tuuray warka daba tuura marka warkaas dadka wax falanqaynaya waxay leeyihiin warkaas wara nooga baxay warqadaas waxa ku qoran oo ninkan sharaxaya inuusan Mareykanku wuxuu yiri inuusan Mareykanku dib ugu soo noqonayn gobolka bariga dhexe u sii joogay waa ka guura meesha ninkan dagaalkii labaad markii laga soo laabtay kadib
عدة كلية مريكان كأتكاتي وعنقو يقولي وآية الله المستشار كيس التليس وحولي مريكان وأوغرد ما تالكان وكدو الضوبانا والسعودة معناه أن مكان وحا أي ورقد كقرين إن كستو أن لأغين لكن نكن هذه الكيسة مريكان وحا سوى سوديد الدولة هدو أقبلوا ماشا وكسعودة وليه نكان هدو مركان تسو الجزيرة أيا وربحين عجيبة كقرتي وحا عوان وغنكتي هزيمة أما قول درد واشنطن لتليها آية الله هي أيا وحوليه وحانو فيلينا مريكانك inaanu mar dambe joogi doonin gobolkan bilaha soo socda wixii waa ka goran doonaa Washington waxa uu sheegay inay markaa kala kulantay Iran iska caabin aanay filayn waxaana ay Iran u qabsatay oo ay la wareegtay gacantana ku dhigtay marin biyoodka Hormuz waxa meesha ka baxay imbraadoriyadii Mareykanka uu ku haystay gobolkaas waxaana hadda imbraadoriyadaasi ama boqortooyadaasi ay bilowday inay dhacdo oo ay hoos u dhacdo anagu waxaan nahay dawladul waxiida oo dawladda kaliya ee markaa Mareykanka ka adkaatay dagaalkii labaad ee adduunka sida daraadeed Mareykanka uma ogolaan doono inuu sii wado siyaasadihiisii hore ee galbeedka Aasiya ninkan marka warkiisi waa cadiyay warkii marka warqada ku qornaa inuusan rajo badan lahayn dadka qaar leeyihiin oo waxay leeyihiin ninkan warkan uu ka daba tuurayo warkaas nabada rabnaa iyo warkan isba keenay leeyahay marka sheekadaas halkaas iyaduna ka qasantaay marka waxa kale oo soo baxay war kale oo cajiib ah sida yimid oo la leeyahay Shiinuhu wuxuu baquudareynayaa inuu soo dago Carabtan la soo dago shidaalkan waxa kan markiisa iska dhuuq Carabtan marba qofa iska iimaanaya iska degayo iska dhuuqay meeshan walla yaab wuxuu leeyahay aniga waxaan noqon doonaa ninaan ku kalsoonaan doontaan idin ilaalin doona marka waa kaas Iran hadda maxay lahayd xuduurkaaga ama joogitaankaaga gobolkan bilaha soo socda waa sii dhabaana waa ka guure baashan duqa markuu guuro Shiinaasna Iran isku xareeyay ana soo dagay uu leeyahay Carabtii uu la sii hadlaa Shiinuhuna wuxuu leeyahay Carabay aniga waxaan ahay qof ku kalsoontii ninkii meesha soo dagay waxa idinka dhuuqay lacagtii idinka qaad waa idin waardiyeena idin yiri wax uu idin waardiyay maartay jugta lidinka galiyay maal walba lacag uu idinka daldalan jiray ana idin waardiyeena saldhigyaan ka samaysan halka cid idin soo hunguriyeenaysa male يا إسقارة دير إيران جوكتك الجليس مركا عنيقا سود ويولي وحمودها إسلام قروبة ولا شكاسرة يمودة عربتي وورين عربتي الشيناسكي هذا حدرة ميلان وكبرة هذا عمر كان إذا تصور بحين كوبان والجزيرة عوان وقنكتي شينوه وحيليهين عربي أنك إذين نقرينا بدل wanaagsan oo aad ku kalsoontiin badal wanaagsan idin noqonayna Carabay la socdo leh marka sheekadaas sheeka caadi baahan warkaas marka waxa uu kamid yahay wararka soo kordhaysa caadihii la soo dhaafay way qodobka isaguna halkaas ka gudbaynaa warka kale cajiibka shalay iyo daraadii waxaanu ka hadlaynay markab Faransiisa Hormuz tagaawiri markab Ingiriisa Hormuz tagaawiri maxaa ka doonaysiin waxa ka doonayda maraakiibta meesha maraysa saacideena Mareykanna anaga kuma xirin Iran oo la hadlaan waa taa marka shalay idin lahaa ogaada shalay waxaan idinku iri hadaa xusuusataan barnaamijkii xalaal u maleeyaa ama idinku iri miinada baasaa gashtay Ingiriis meesha maraakiibta maasaa meesha ku ceshaday Iran hadda war ma soo saarinayeen laakiin war soo saari doonta haddaba marka sida warbixinta Al Jazeera ay qortay mas'uul sare oo ka tirsan Iran waxa uu sheegay inay iska caabin doonaan oo ay la diriri doonaan joogitaanka maraakiibta dagaal ee Faransiiska iyo Britain ay soo gaareen meel ku dhow Hormuz ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa warkan soo saaray
waxaana uu sheegay in halkaa la keeno maraakiib dagaal oo marinbiyoodka Hormuz iyadoo lagu marmarsiyoonayo in la ilaalinayo habsami u socodka maraakiibta halkaas. waxa uu sheegay inaysan waxba ka bedeli doonin, waxaana uu yidhi joogitaanka maraakiibta dagaal ee Faransiiska iyo Britain ee marinbiyoodka Hormuz waxay keeni doontaa jawaab degdeg ah oo lala yaabo oo Iiraan ay ka bixin doonto. Meesha isaga tagay